daawadayaal ku soo dhawaada muuqaal gaar ah. Muuqaalkan waxaan diiradda ku saaraynaa siduu Mareykanku uga faa'iideystay xisaabtii qaldaneed ee Saddam Hussein uguna burburiyay dalkaasi weynaa. Shalay oo kale 3 sano ka hor 12 January 1990 Koongareeska Mareykanka ayaa u codeeyay in madaxweyne George Bush loo idmo inuu dagaal ku qaado Ciraaq, xoogna uu adeegsan karayo in ciidamada Saddam laga saaro Kuwait. Dhowr maalmood oo kaliya markay ka soo wareegtay ciidankii Koongareeska isbahaysiga caalamiga ah ee uu Ameerikaanku horkacayay waxay ku dhawaaqeen inay bilaabayaan dagaalkii labaad ee gacanka bishii Janaayo 17keedii 1991. Dastuurka Mareykanku wuxuu farayaa madaxweynaha inuu ogolaanshiyo ka helo Koongareeska ka hor inta uusan dagaal ku qaadin waddan kasta oon si toos ah u weerarin danaha Mareykanka. Laakiin howlgalka Bush dhinaca Koongareeska kalama uusan kulmin wax cadaadis ah, mana aysan ka hor imanin mucaaradad ballaaran. Ogolaanshaha in xoog la isticmaalo go'aanka Koongareeska Mareykanka ee ahaa in awood military loo adeegsado si ciidamada Ciraaq looga saaro Kuwait waxaa ka mid ahaa in la siiyay madaxweynaha Ciraaq Saddam Hussein ilaa 15 Janaayo 1991 si uu ciidamadiisa ugala baxo Kuwait. waa sida uu TV-ga Al Jazeera u sheegay khabiirka arrimaha istiraatiijiga ah ee Dr. Faris Turki. Dr. Faris ayaa ku warramaya in Koongareeska uu ansixiyay baahida loo qabo in la maro dhammaan hababka diblomaasiyadeed iyo kuwa nabadeed si looga fogaado dagaal. Koongareeska ayaa caddeeyay inuu ka laabanayo ogolaanshihiisa waa haddii dagaalku socdo muddo dheer ama uu dhalayo khasaare culus. Khabiir Dr. Turki wuxuu xusay in madaxweynihii Mareykanka ee Bush uusan sugin ogolaanshaha Koongareeska. taa beddelkeeda 5 bilood ka hor intaan la ansixin howlgalka wuxuu madaxweynuhu u daadgureeyay ilaa nus milyuun ciidamadiisa ah gobolka Khaliijka si loogu diyaar garoobo dagaalka. waxaa lagu sifeeyay sababaha fargelinta Mareykanka ee degdeg ah waa muhiimadda gaarka ah ee gobolka Khaliijka Carabta maadaama uu yahay soo saaraha ugu badan iyo dhoofiyaha saliidda adduunka. sidoo kalena danaha ka dhaxeeya Mareykanka iyo dawladaha Khaliijka ayaa ah kuwo waaweyn iyo Washington oo doonaysa inay soo rogto gabi ahaanba haymanadeeda oo marnaba Ameerikaanku uma uusan dulqaadan karaynin ficil heerkiisu gaarsiisan yahay duulaanka Kuwait ee dhaca gobolka oo ay daran tahay xasaasiyadiisu. dooqa diblomaasiyadda ilaa maalintii ugu horreysay ee dhibaatada kadib markii ciidamada Ciraaq ay duulaan ku qaadeen Kuwait 2 Agoosto 1990 Mareykanku wuxuu ku baaqay in Ciraaq ay ka baxdo Kuwait. laakiin marka loo eego xisaabta istiraatiijiyadda waxaa soo baxaysa taa ka soo horjeedkeeda. hoggaanka Ciraaq waxay ka caawiyeen fulinta istiraatiijiyadda Ameerikaanka. xisaab qaldan oo ka fog caqliga iyo xaqiiqda ayayna isku dhufsadeen Ciraaqiyiinta sida uu sheegay madaxa waaxda daraasadaha siyaasadda iyo istiraatiijiyadda ee xarunta daraasaadka gobolka ee jaamacadda Mosul Dr. Mithaq Khayrillah Jaluud. Dr. Jaluud ayaa sheegay in 4 Agoosto 1990 uu hoggaanka Ciraaq go'aansaday inuu ka baxo Kuwait kadib dhexdhexaadin wanaagsan oo kaga timid dhanka boqorka Urdun oo xilligaasi uu ahaa Hussein bin Talaal. taa beddelkeeda hoggaanka Ciraaq wuxuu shuruud kaga dhigay in aan laga soo saarin go'aan Carabeed oo lagu cambaareynayo Ciraaq. laakiin madaxweynaha Masar Maxamed Xusni Mubaarak oo qadka taleefanka kula hadla Bush ayaa cambaariyay Ciraaq taas oo kaleetay Saddam Hussein inuu ka laabto go'aankiisii ka bixitaanka. khabiir Jaluud wuxuu aaminsan yahay in dawladaha Khaliijka bilowgii xiisadda ay rabeen inay Ciraaq ciidamadeeda la baxdo oo kaliya waxaana taa xaqiijinaya in hoggaanka Sacuudiga uu ka cagajiidayay inuu qaabilo ciidamada Mareykanka markii hore. khabiirku wuxuu tilmaamay in Saddam uu muujiyay bartamihii Oktoobar 1990 diyaar u ahaanshihiisa inuu wadahadal la galo Sacuudi Carabiya iyo Mareykanka weliba si niyad sami leh. Ciraaq ayaana ku dhawaaqday 3 maalmood kadib inay ogolaanayso in dadka ajaanibta ah ay ka baxaan dalka Kuwait. laakiin maamulka Mareykanka kama uusan jawaabin qorshaha Ciraaq. markaa kadib Washington waxay ku riixday golaha amniga ee qaramada midoobay inuu soo saaro go'aan isdaba joog ah oo ka dhan ah Ciraaq, kuwaasi oo ah kuwii ugu adkaa taariikhda golahan. dadaaladii ugu dambeeyay ee xalka nabadeed ayaa ahaa kulan ay Geneva ku yeesheen wasiirka arrimaha dibadda ee Ciraaq Tariq Aziz iyo xogayihii arrimaha dibadda ee Mareykanka ee xilligaasi James Baker. dadaaladii ugu dambeeyay ee xalka nabadeed ayaa ahaa kulan Geneva ku dhex maray 9 Diseembar 1990 wasiirka arrimaha dibadda ee Ciraaq Tariq Aziz iyo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee xilligaasi James Baker. si kastaba ha ahaatee kulankan ayaa fashilmay oo dhinacyada waxay ku adkaysteen go'aanadoodii hore. duqayntii Ciraaq diyaaradaha isbahaysiga ayaa waqooyi iyo koonfurba ka bilaabay duulaan ballaaran oo xagga cirka ah maalin kadib markii ay dhammaatay muddadii uu golaha ammaanka u qabtay Ciraaq inay ciidamadeeda kala baxdo Kuwait.
sida uu sheegay khabiirka militariga cabdulkhaaliq al-shaahir wuxuu tibaahay in isbahaysigu uu qaaday 109,876 weerar oo xagga cirka ah muddo 43 maalmood gudahood ah, celcelis ahaanna ay tahay 2,555 duqaymo ah ayaa ku soo aadaysa maalin kasta. waxayna adeegsadeen in ka badan 60,000 oo tan oo bambooyin iyo waxyaalaha qarxa ah, taasoo horseeday burburka kaabayaasha dhaqaalaha Ciraaq. al-shaahir oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi kadib markii isbahaysigu uu burburiyay diyaaradaha, nidaamyada difaaca hawada iyo xarumaha isgaarsiinta Ciraaq, diyaaradaha waxay bilaabeen bartilmaameedsiga gantaalada Iskuud ee Ciraaqiyiintu ay haysteen, aeroboortiyada, xarumaha cilmi-baarista militariga iyo maraakiibta dagaalka, qaybaha militariga Ciraaq ee ku sugan Kuwait, xarumaha laga dhaliyo danabka korontada, xarumaha isgaarsiinta taleefannada, warshadihii saliidda, buundooyinka, wadooyinka tareenada iyo xitaa xarumaha sifaynta biyaha. khabiirka militariga Ciraaq wuxuu rumaysan yahay in baaxadda iyo ballaarnida duqaynta oo lagu darayo goobaha lala beegsaday taasi ay caddaynayso in looga dan lahaa cuuriyaaminta hay-ad kasta oo fulin kartay ficil militari si loo wiiqo awoodda ciidamada Ciraaq, saamaynna ugu yeelato niyadda dadka reer Ciraaq iyo burburinta guud ahaan dalka Ciraaq si kama dambays ah, si ay u yaraato khasaaraha soo gaaraya xoogagii xulafada ee duulaanka ahaa. samaynta go'aanka Koongareeska. Profesorka cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Baghdad, Dr. Ahmed Adnaan Al-Miyaali, wuxuu u tixgeliyay go'aankii Koongareeska inuu ahaa bilowgii musiibada Ciraaq iyo Ciraaqiyiinta, daciifinta ciidanka Ciraaq, duminta xarumaha iyo qaab dhismeedka dawladda, iyo cunaqabateyn dhaqaale ee uu dalkaasi la daalaadhacayo ilaa iyo haatan. Al-Miyaali wuxuu rumaysan yahay in aysan macquul ahayn in la kala saaro duulaankii 1991 iyo kii 2003 ee lagu soo afjaray taliskii Saddam. maxaa yeelay wuxuu yidhi profesorku waa laba weji oo la xiriira guuldarrooyinka iyo dib u dhaca dalka Ciraaq, isagoo tilmaamay in labada dhacdaba ay aas u yihiin geedu socodka duminta dawladdii Ciraaq. Al-Miyaali wuxuu rumaysan yahay in wixii dhacay tan iyo 1991 ay ahaayeen hannaan nidaamsan oo loo qorsheeyey duulaankii Ciraaq lagu qaaday 2003. qorshuhuna gebi ahaanba wuxuu ku dhammaaday sidii ay rabeen cadowga. Ciraaqiyiintuna weli waxay dhamayaan dhamacdii 11 Janaayo 1991. xaaladda ayaana sii socon karaysa muddo dheer, ayuu yidhi Al-Miyaali. intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkii koobnaa oon uga hadlaynay duulaankii Mareykanka ee Ciraaq. fadlan haddii aad janaalka ku cusub tahay subscribe saar, haddii aad muuqaalka ka heshayna like saar. mahadsanid.